innaka u baahan diinta islaamkana innaka u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhex geliyay waa biyaha dhexdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhex baxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligan innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukana innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadalno innaka u baahan rasuulkeennii udgoona calayhi الsalaatu wassalaam ibnu mascuud radia allahu canhu ayuu ku yihi qur-aanka dusheeda ku akri waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yihi aqra' calayka wacalayka unzil yaa rasuul allah ma adaan dushaada qur-aanka ku akriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degay waxau nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam uu ugu jawaabay inii uxibu an asmacahu min gayri qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhagaystee dusheeda ku akri buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akriyo ama qur-aanka adigoo aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaagu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanu linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akrinaayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu waxa ugu jawaabay ardaygiisii inii uxibu an asmacahu min gayri waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaysto oon ka maqlee dusheeda ku akri buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam faqara'tu calayhi suurata الnisaa suuraddaasaan dushiisa ku akriyay buu hi nebiga dushiisa ilaa laga gaadho aayaddaas fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin wa ji'naa bika calىa haؤulaaءi shahiida markaa aayad qur-aanuu nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aada ku marag furi doonto ummaddaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suurat الnisaa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu hada yaa rasuula allah yaa rasuul allah maxaa sida naftaada aada ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabda shakuura
miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaane jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtani waa masaajidii aqaladeeni nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa-idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqa la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanaayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri banaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atermidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yihi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay lamid yihiin buu yihi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu kusoo tukanayay aqaladiisa salaada faraa-idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yihi yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay deedna markaabuu nebigu ku yihi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi awaakhir suuratu ali cimraan soo ma hayn awaakhir suuratu ali cimraan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalaytoola yidhi aayadahaas aayaduhu maxay ka warramayaan markaas ina fii khalqi الsamaawaati waalardi waاkhtilaafi اleyli waالnahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedilaya bal wax udhexeeya sheeg wax saddexaad ma jiraan waa habeen iyo maalin hadday habeentahay saad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alayh wasalam hadday maalin ay tahayna saad maalinta u gudan lahayd aada noloshaada u gudan lahayd nebi maxamed baa kuu jideeyey
deedna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri deedna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila ilaahow cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahow xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaaba annaar ilaahow cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ee ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mise qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba-u maa qablakum buu ka warramaya waxalli wixii inaga horreeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyadda mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhan ba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid ee kaftan qur-aanku iyo dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegiddiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado bariddiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujr ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana uu cadaalad falay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman qaala bihi sadaq ninka yidhaahda qur-aankaa sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur-aanka yidhahda war qur-aanka han raacno war shareecaddeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacay baa iyuu nebigu yuri sal alla alay wasalam marka qur-aankaa ilaahayna siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay innaka nabigeena moxamed calayh salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyuu jibriilla ag taagan yahay ayuu nebigu ka maqlay xagga samada shanqadh sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantu adduunka yimiday malagii baa nebiga salaame calayhi salaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur baan kuu sidaayo ilaahay igu kaa soo dhiibay bashaaraysa baa lagu yidhi mise nuur laba nuur lam yu'tahumaa nabiyun qablaka adiga hortaa nebi labadaa nuur ilaahay uu siiyey oo nasiib u yeeshayna ma jirin baa lagu yidhi
خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيادات واللبا إلهي والنبي محمد وكسيي خزائنت عرشك هو السيدة الله إنت الله فريبا النبي قال الله صو صاري قرآنك كريم كي ملائكته أي صودان أيا لقد دبكيني لأن مرقاسا بيت العز لدقي ملك أيا سيجارة إنتو النبي محمد وقيمدي لبدا أوكيني أو كله أبشر بنورين أوتيتهما بشارة يسول لبا نور با إلهي يقوكا سودي بو أدقى اللي سيئي أدقى هرتا النبي النصيب ويشعين لسيئين مجرين ولا بديه خواتم سورة البقرة يا سورة الفاتحة ويان حرف كمد إلهي باهد هذا إلهي باهد هذا حرف كمد إلهي كموي دي ستد خير الدنيا خير آخرة واحد دون يسد إلا إلهي وكو أقبل دعاء والله وصياب اللي قولي كدو عيسو باهي ملهن أرباهي ملهن ملهن نمي باهي وان بوحنا سوما هذا باهي هذا وكان كدو عيسو هذا ملك اللي عنده هو تاجي سنة كيف دور كم بجامعة هذا كسر بحيس شهادة أن قوش اللجوء سوق لي إلهي كود وين ميسي أجو إلهي وح إلهي هذا كود وانه سوى قرآن كاس وح حاجة هذا اللجوء كود بوله وقرآن كاس واحد الدنيا هذه آخرة هذا كوجو حاجة سوى قرآن كقرآن كالرع قرآن كود ضد بك هذا ضد حرف كمدة بالنبي قال له يري إلهي تبارك بلايا صوصعتا كدو عيسى سورة فاتحة إلهي كبري نولا الشبا عريري كوكو نغطي سورة كبري إلهي كدو عيسى مراد بالله هاي كدو عيسى أواخر سورة البقرة إلهي كويدي الصباحي دادا الباب كإلهي قراع عبادة هديتها أخلاق هديتها تربية أولاد هديتها سيدا مجتمع لولا نقمية هديتها سيدا قيس لولا نقمية هديتها قرآن كامل راعين يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتدبرون عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه أدب قرآن كأفير سنجر موقتها مسكيت كالنبي قلنا عليه الصلاة والسلام بوهابين صوق عليه ساعده الدنبه أمير إساقوها إلهي ببرياء مالك هدان سيحدان أبوي لحقه يمضي يقول هيد من ضيع ابني مسؤول إلى هذا الحد عبادتي سحبينك إلى السنة يبوها حبين هذا كمد وسوق لمساجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوارك ير شابة وقيام الليل كي أتاقن القرآن ككرو قادايا واستعجل ودقيست والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعضي وحو إلهي لي إن عذاب ربك لواقع آيات دا عمر مركو مغلبان ليدي دولكو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن بالمول مدة كدوبو حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون صدين اللقما ورقبينه آيات دا قرآن كآيات قلبي ستابتي بالليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي نبي قوي مديسقو أويا يا مالن يا أبا بكر ما أنت محل له ساي شيك مركز سوري نبي الله صورة دنا كوكو سودكتي لبدا آيات ده قدام بيسايقو هنا يسوي وحبك كم تيجي لبدا آيات
faman yacmal mihqaala darati khayra yarahu waman yacmal mihqaala darati shara yarahu. mihqaala dara waa wax isha bini aadamku qabato waxa ugu yaray aragto oo khayra intaa qofkii sameeya maalinka qiyaamaha abaalka uu heli doonaa baa ilaahay yidhi. intaa in la egoo dembi o shara qofka sameeyana aakhiradu uu heli doonaa maaragtaane abaalkiisa uu heli doonaa. abi bakri sidiiq waxa uu leeyahay labadan aayadood ee suuradda ugu dambaysa waxba kamay tegin ba nebi allow, seen markaa ku badbaadaynaa? markaa buu nebigu uhi yaa abaa bakr waladii nafsu muxamadin biyadihi, ilaahay baan ku dhaartay buu rasuulku yidhi, allaha nafta muxamadi ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee, low lam tudnibuu haddii dembiba uusan iniga dhacaynin oo dad dembi ka dhacayo aanad ahaynba, ladahaba allaahu bikum, ilaahay intuu adduunyada inaga kaxeeyo ini qaado ayaa ilaahay waxa uu keeni lahaa duul, wuxuu ilaahay keeni lahaa arlada dusheeda dembi intuu dembi ka dhaco oo ay dembi sameeyaan ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay dembigooga uu dhaafo, kuwaasaa ilaahay keenan lahaa buu rasuulku ku yidhi. cabsidii markay ka badatay ayaa nebigu xadiista ku akrinayaa bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan. adduunyada dusheeda ka arkaan o dhan aakhiraday ka dhex arkeen iyagu. nin taabiciintii buu ahaa gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi. salafku habeenka ugu horeysa ee leylat zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo. qolka caroos uu amrana amarkiisa way adeecaysaa, haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonta oo way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso, wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi. marka labada rakacdood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadyigii saxaabada, waa hadyigii salafka. waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama, ana taacadda ilaahay iyo taacadda nebi maxamed baan kugu hogaamine, sidaas salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay. hada marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunno ah halkaa fooda in la qabto. fooda ducadee lagu akrinaya allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa jubilat calayha, soo mahayn khayra maa jubilat calayh wa acuudu bika min shariha wa shari maa jubilat calayhi. waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macneeg waa maxay? ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa, khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa, sharkaygana waan kaa magan galay, sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay. halkaa fooda maxaa loo qabanayaa? fooda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakirada qofka bini aadanka, xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada. haddaad kala garan weyda ka waran labada soo khatar maaha. wamaa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha. lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu. dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajidda ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay yidhi. 100 hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada, 100 hadduu gaadho da'diisu caqligiisu waa taam, 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam, 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam. laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa, way shanqari qalow 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 birba ka dhashan qari. uma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla. lidaalika habeenka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaa. markaa ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say 2 rakaca ugu jireen salaadii fajar baa loogu eedaamay. innagana ka warrama habeenka caroosada la soo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa ayuu leeyahay war kuwan khayrkooga allaha badiye bay kaa soo baxaan. soo saa maahide maa sha allah.
laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga Silata banu Ushaym raxmatullaahi calayh sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bay ahayd oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibaatu lit-tayyibiin wat-tayyibuuna lit-tayyibaat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu as-salihah soo nabigu ma odhan nolosha adduunyadu waa raaxo yar raaxada yar ee adduunyadana waxaa helay buu nabigu yidhi ninka ilaahay uu ku hagaajiyo gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan oo wanaagsan haa haddaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay wuxuu u keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaata leylkii iyaduna aanan odhan aadaankii fajarkaa dhacay uu ka baxay aqalkii ila almasjid subaxdiiba haweenkiiba u yimid caroosadii bal waran waana suufiyo aan u jeedinba dumar markaasay ku tidhi salaadii aan gallay baa ka baxnay tihi aadaankii fajarka iska dahay in laysa salaamee salaadii aan xidhanay labadii rakacadood aadaanka fajarkaa naga bixiyey tihi isagii baa la qabsadee markaa oo la yidhi war ninkaagan khayr allaha ku siiye maxaad caroosadda xaleetoole aad sidaa ugu gashay wuxuu yihi ininkaa iga gardaran buu yidhi eeg deedna ilaahay xasuuso ka lixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii kam min albashar baa ilaahay abuuray qaar baa fuqaraaya qaar baa akhniyaaya qaar baa caafimaad lagu deeqay qaar baa xanuun lagu ibtileeyey qaar baa faqri lagu imtixaamay qaar baa awlaaddii loo hagaajiyey qaar baa awlaaddii laga bi'iyey qaar baa waxbarashada loo furay qaar baa waxbarashada lagu adkeeyey qaar baa islaamnimada ilaahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaalnimay ku dhimanayaan dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn ya qaar kuwa ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan marka jawaabade dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bui sheekh jaamacadayna waan dhamaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aada u fikraya bu ahaa wuxuu ihi cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa bui marka horeysaba soomaaliya lan qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi diblomkan aqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidayo inaad wax barato inaad dakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhexaysa ogow habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray caloosha hooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nabigu sheegay 40 ka hor
ajashiisiina habeenkaasaa la qori maalintuu dhimanayo lab iyo dhidig midkuu ahaanayna habeenkaasaa la qori أهل النار يا أهل الجنة متكو يهين هبين كاب الله قرب رسولك صلى الله عليه وسلم كسر لي رسولك أرزاق دادي هبين كاب الله قري